Assalaamu calaykum saaxiibayaal. Maanta waxaan soo qaadanaynaa mid ka mid ah barnaamijyadan ugu jeclahay inaan sameeyo. Aan ogsoonahay inaan wax badan aad ka faa'iidi doontaan insha Allah. Haddaba aan ugu galno. Ma ogtahay markii waraaqadii uu diray Khalid bin Waliid boqorkii Faris ee Kisra in isla markaas boqortooyadii Faris uu gargaar iyo caawinaad ka dalbaday boqorkii Shiinaha lagu soo jawaabay ani malihi awood aan uga hortago dad haddii ay damcaan inay ruujiyaan buuraha ruujinaya. Ma ogtahay biyaha la karkariyo kadib la barafeeyo inay yeeshaan midab dhalaal saa'id ah. Ma ogtahay gobolka Colorado ee dalka Mareykanka waxaa weli ka jirta volkaano diyaar ah taasoo waqti ugu dambeysay qaraxda ay ahayd waqtigii la dhisay ahraamta Masar. Ma ogtahay in maskaxdaadu ay habeenkii ka firfircoon tahay markii loo fiirsho maalintii. Ma ogtahay in carruurtu markii ay dhalanayso ay leeyihiin 300 oo lafood laakiin xilliga qaangaarka ay leeyihiin 206 lafood. Ma ogtahay cidida ugu bixida badan jirka waa cidida farta dhexe halka tan ugu gaabisan ay tahay tan suulka. Ma ogtahay in carruurtu markay dhashaan ilaa laga gaaro isbuuca saddexaad inaysan wax ilina la socon ooyintooda. Ma ogtahay subaxii inaad joog ahaan ka dheer tahay galabtii 1 sentimitir. Ma ogtahay saxaabigii lagu naanays jiray sayidka qiraa'ada qur'aanka inuu ahaa Ubay bin Kacab bin Qays. Ma ogtahay in wadada ugu dheer dunida ay tahay Yonge Street ee ku taala magaalada Toronto ee dalka Canada dhererkeeduna yahay 1896 kiiloomitir. Ma ogtahay in tirada ilkaha kaneecadu tahay 47 ilig halka bakayluhuna leeyahay 28 ilig maroodiguna leeyahay 26 ilig geeluna leeyahay 34 ilig eyguna leeyahay 42 ilig. Ma ogtahay in hamburger in la keenay magaca magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka. Ma ogtahay in Bill Gates uu bilaabay inuu programyo kombiyuutarada markii uu jiray 13 sanadood. Ma ogtahay dadka rabra inay yihiin dadka ugu nugul inay ku dhacaan cudurrada wadnaha iyo halbowlayaasha dhiigga qaada. Ma ogtahay carruurtu inaysan lahayn markay dhashaan lafta ku dahaaran lowga ee loo yaqaano kneecap. Ma ogtahay sayidka shuhadada ee Xamsa bin Cabdi Mudalib iyo saxaabigii Abu Salama si la mid ah Cabdullaahi bin Xaarid iyo Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam inay yihiin walaalo dhanka naaska ah. Ma ogtahay haddii uu Abubakar ku jiray muhaajiriinta awoodsa ansaartan waxaa ku jiray Sacad bin Mucaad Allah ka raali noqdee wuxuu ugaaska magaraadka guud ee reer Aws ee deganaa Madiina. wuxuu ku islaamay gacanta safiirkii muslimiinta ee Muscab bin Umayr Allah ka raali noqdee kadib wuxuu u soo bandhigay qabiilkiisa dhammaantoodna way aqbaleen. wuxuu gurigiisa noqday guriga saldhigga u ah faafidda diinta Islaamka. wuxuu islaamay isagoo 32 sano jir ah wuxuuna kala qayb galay Nabiga sallallahu alayhi wasallam dagaaladii Badr, Uhud iyo Khandaq. waana saxaabigii xukmiyey xukunkii lagu qaadi lahaa Yahuudi reer Banu Qurayda ee deganaa Madiina kuwaas oo ka baxay heshiiskii ay la galeen Nabiga sallallahu alayhi wasallam iyagoo la saftay gaaladii mushrikiinta. Sacad bin Mucaad wuxuu dhaawac ka soo gaaray dagaalkii Khandaq balaar uu soo gamay Xayaan bin Qays wuxuuna alla ku bariyay ducadan Ilaahay haddii ay hareen dagaalada la galay gaalada Quraysh ibaaqi yeel maadaama ay dhibeen nabigaaga oo beeniyeen ayna soo saareen ilaahu haddii dhexdeena dagaalo dhigto isii shahiidnimo oo hay oofsan ilaa indhahaygu ka raali noqdaan reer Banu Qurayda. Banu waa aqbalay kadib Nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa shaacay dagaal lagu qaaday Yahuudi reer Banu Qurayda waana lagu qaaday ilaa la go'doomiyay go'do socday 25 maalmood wayna isdhiibeen waxayna ogolaadeen in xukunkooda uu qaado Sacad maadaama islaamka ka hor isagu madax u ahaa. kadib Nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa dalbaday in loogu yeero Sacad bin Mucaad inkastoo dhaawac uu ahaa. wuu yimid Sacad isagoo saaran dameer. Nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa yiri dad yahow ka sayidkiina. Nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa u bandhigay inuu xukumo arinkooda wuxuuna ku xukumay in la laayo dagaalyahanadooda galay dagaalka iyo in la qaybsado maalkooda. Nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa yiri waxaan ku dhaartay ka nafteeda gacantiisa ku jirto waxaad ku xukumisay xukunkii Alle ka soo xukumiyay 7 sano korkooda. waxaa la gaaray geeridiisii waxa uu yimid Nabiga sallallahu alayhi wasallam Abubakar Siddiq iyo Umar bin Khattab wuxuu ku geeriyay dafta Nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu yahay Abubakar iyo Umar halka Nabiga sallallahu alayhi wasallam laga dareemay murugo. wuxuu la geeriyooday isagoo jira 37 sano sanadkii shanaadii hijriga. wuxuu diinta u adeegayay muddo dhan 6 sano uuna ku qaatay 6 sano oo kaliya shahaadada 10 jannada lagu bishaareeyay iyagoo nool 11 mubashiriina fil janna. waqtigii aaskiisa kuwa ka mid ah munaafiqiinta ayaa dhahay naxashkiisu fududa iyagoo ku jeesjeesaya. waxaana maqlay Nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuuna yiri malaa'igtu waxay ku faraxday ruuxa Sacad waxaana gilgishmay carshiga Rabbi. waxaana maalintaas dhulka yimid kana soo qayb galay janaasada Sacad bin Mucaad 70,000 oo malaa'ig kuwaas oo aanan abid aan imaan dhulka maalintaas ka hor. markii la aasay Sacad bin Mucaad Allah ka raali noqday ayuu Nabiga sallallahu alayhi wasallam tasbiixsaday subhanallah 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 waxaana ku dayday asxaabtii
kadib nebiga sallallahu calayhi wasallam ayaa takbiirsaday allahu akbar allahu akbar allahu akbar asxaabtiina way takbiirsadeen kadib markuu dhameeyey asxaabta ayaa weydiiyey nebiga sallallahu calayhi wasallam nebi allow maxaa la tasbiixsatay lana takbiirsatay wuxuuna yidhi nebiga sallallahu calayhi wasallam addoonkan wanaagsan ee carshiga rabbi ula gilgishmay waxaa cidhiir ku noqday qabriga alle ayaa si faraj u furay ma og tahay reer banu qureeda inay ku abtirsadaan sayidunaa haaruun calayhi salaam nebi muuse calayhi salaam walaalkiis ma og tahay nibirigu inuu yahay xayawaanka ugu weyn adduunka waxaase garaaca wadnihiisa laga maqli karaa masaafo dhan 2 mayl halka wadnaha culayskiisu yahay 400 oo pound una dhiganta ku dhowaad 180 kilogaram ma og tahay ilkuhu inay yihiin xubinta keliya ee jirka haddii ay wax soo gaaraan aanan istactiri karin ma og tahay diyaaraddii ugu horraysay ee in la sameeyo taariikhdu markay ahayd 17 Diseembar 1903 waxaana sameeyey labadii walaalaha ahaa ee Wright Brothers weligeed bani aadamku ku taamayey inuu sameeyo wax duula tusaale ahaan gabayaagii carbeed ahaana fiisyahankii reer Andalus ee Cabbaas ibnu Firnaas wuxuuna ahaa qofkii ugu horreeyay isku daya duulitaan baalal uu ku sameeyey geedka bambuuga iyo dunta xariirta iyo ashyaa kale ayuu ku duulay wuxuuna ka soo booday minaarad ku taala dalka Yemen markii hawada uu ku jiray wax yar waxaa dhibaato ka qabsatay siduu u soo degi lahaa ugu dambeyntiina wuu soo dhacay isagoona ka tabay dhabarka wuxuuna sii noolaaday 12 sano oo kale ma og tahay qofku 3 meelood meel ayuu ku qaataa noloshiisa hurdo ma og tahay masaafada u dhaxaysa dhulka iyo dayaxu celis ahaan inay tahay ku dhowaad 384,400 kiiloomitir ma og tahay the father of algebra aabaha aljebrada inuu ahaa Mohammed al-Khwarizmi oo ka soo jeeday dhulka Bershiya ama Faris ee maanta loo yaqaano Iran ma og tahay ciddii ugu horreysay ee ku dawaabta Kacbada inay ahayd malaa'igta ma og tahay in gobolka Hawaii ee dalka Mareykanka uu yahay gobolka keliya ee beera kofeega ma og tahay Ibliis magaciisa hore inuu ahaa Azaziil ma og tahay guuxa codka libaaxa in laga maqli karo masaafo dhan 5 mayl oo u dhiganta 8 kiiloomitir ma og tahay Zainab bintu Jahsh mid ka mid ah xaasaska nebiga sallallahu calayhi wasallam inay ahaayeen nebiga ilmaabti oo waxaa dhashay nebiga eedadiis Umayma bintu Cabdimudallib oo gabadhani waxay xaasaska nebiga sallallahu calayhi wasallam kaga duwaneed in ilaahay uu guuri nebiga sallallahu calayhi wasallam oo 7 sanad korkooda ayaa laga soo mihiriyey ma og tahay dhakhtarkii ugu horreeyay dahbiyada wareegga dhiigga inuu ahaa ibnu Nafiis uuna ahaa caalim muslim ah ma og tahay saxaabiga ugu horreeyay ee muhaajiriinta ee reer Makka ee ku dhashay magaalada Madiina inuu ahaa Cabdullaahi bin Zubayr waxaana iska dhalay Asmaa bintu Abi Bakar iyo mid ka mid ah 10 asxaabi ee lagu bishaaray jannada ee Zubayr bin Cawaam awoogiisa dhanka hooyada waa Abubakar Sadiiq habeertiisa waa hooyada mu'miniinta Aisha bintu Abi Bakar Allah ka raali noqdee ayadiisa dhanka aabaha waa Safiya bintu Cabdimudallib nabiga sallallahu calayhi wasallam eedadiisa iyo walaasha sayidu shuhadaa Hamza bin Cabdimudallib shakhsigaas ehelkaas barakada leh ka dhashay waxaa dilay Xajaaj bin Yuusuf oo uu soo diray amiirkii mu'miniinta markaas Cabdulmaalik bin Marwaan wuxuuna ka jaray madaxa xaramka dhexdiisa waxaana la gaarsiiyey jirkiisa hooyadiis Asmaa bintu Abi Bakar iyada iyo walaalkii Curwa keliya ayaa ku tukaday janaasadiisa ma og tahay silsilad buureedka ugu dheer adduunka inay tahay Andis oo dhacda koonfur Ameerika ma og tahay sayiduna Idriis calayhi salaam inuu ahaa qofkii ugu horreeyay ee Tuladhar ma og tahay hogaamiyihii muslimka ahaa ee furtay dhulka Andalus inuu ahaa Daariq bin Siyaad ma og tahay ummul mu'miniin Aisha bintu Abi Bakar inay geeriyootay habeen Talaado ah 17 Ramadaan iyadoo jirtay 66 sano inkastoo aan la isku waafaqsanayn sanadkii geeriyootay haddana waxaa loo badiyaa inay geeriyootay sanadkii 58 ee hijriga ibnu Cabbaas ayuuna ahaa qofkii ugu dambeeyay ee la kulanto isagoona ammaan kala duldhacay Aisha waxaana salaada janaasada tujiyey Abu Hurayra oo ay uga dardaarantay inuu tujiyo waxaana la aasay isla habeenkaas oo Talaado ahayd kadib salaadul witri waxaana lagu aasay qabuuraha Baqiic waxayna geeriyootay xilligii dawladdii Umayyiyiinta Allah ka raali noqdo hooyo Aisha bintu Abi Bakar ma og tahay in xawaaraha iftiinku halkii libraqsi ku jiro 300,000 oo kiiloomitir ma og tahay Cabdullaahi bin Cabbaas iyo Khaalid bin Waliid Allah ka wada raali noqday inay ahaayeen ilmo habreed waxaana sidoo kale habyar u ahaa mid ka mid ah xaasaska nebiga sallallahu calayhi wasallam iyo midii ugu dambeysay ee xaasaska nebiga sallallahu calayhi wasallam uu guursado ee Maymuunata bintu Xaarif Allah ka raali noqdee ma og tahay wadamada Bolivia iyo Paraguay inay yihiin labada wadan ee kaliya dhaca koonfur Ameerika ee ah wadamo xiran calaasha inay yihiin wadamo aan lahayn bad ma og tahay the father of modern surgery aabaha qaliinka casriga ahi inuu ahaa caalim muslim ah oo lagu magacaabo Abu Qasim Khalaf ibn al-Abbas al-Zahrawi
wuxuu ku dhashay magaalada Al-Zahra oo 6.4 kiiloomitir u jirta magaalada Cordoba ee dalka Spain oo markaas ay xukumaysay dawladda Andalus. sida ay taariikhyahanadu isku raaceen magaaladan waxaa la dhisay wixii ka dambeeyay 936 miilaadiga markaas oo la aaminsan yahay inuu dhashay. waxaa la sheegaa inuu ka soo jeedo qabiilka Ansaar ee deganeed magaalada Madiina, wuxuuna noolaa xilligii dahabiga ahaa ee Islaamka ee u dhaxaysay qarnigii 8aad ilaa qarnigii 13aad ee Golden Age. wuxuuna qoray buug lagu magacaabo Al-Tasriif, micnaheedu yahay The Method of Medicine, habka daaweynta, kaasoo loo turjumay luqado badan kuna dhex faafay gudaha Yurub. jaamacadaha Yurub ayaa lagu dhiganayay in ka badan 500 oo sano, wuxuuna ka kooban yahay 30 cutub, waxayna ku qaadatay inuu qoro muddo dhan 50 sano. wuxuu soo hindisay in ka badan 200 oo ah agabyada lagu talagalay qaliinka, wuxuuna ahaa qofkii ugu horeeyay dahfeeda waxa sababa paralyska ama dhinaca qalalka iyo sidii mas'uulka uga tahay laf dhabarta. sidoo kale wuxuu ahaa qofkii ugu horeeyay ee si faahfaahsan u faahfaahiyey qaliinka kansarka naasaha, wuxuuna ku xeel dheeraa ka saaridda keliyaha dhagaxaanta. waxaa uu sii dheer inuu tilmaamay qaabka loo xidho xididada dhiigga 600 oo sano ka hor. Ambrose Paré kasakow wuxuu wax badan ka qoray lafaha iyo kala goosyada, isagoona xusay jabka lafaha, sanka iyo laf dhabarta. waxaa buuggiisa la dhameeyey sanadkii 1000 ee taariikhda miilaadiga, wuxuuna uga hadlay mowduucyo badan oo dhanka caafimaadka ah sida cilmiga indhaha, farmashiistaha, nafaqada, dhakhtarka ilkaha, dhalmada iyo cudurrada. caalimka weyn ayaa sheegay in aqoontaas ballaaran uu ka soo ururiyey akhri badan uu sameeyey taasoo la xiriirta qoraaladii caafimaad ee hore. caalimka weyn ayaa ugu dambeyntii adduunkan faarujiyey isagoo jira 77 sano ee sanadkii 1013 taariikhda miilaadiga, balse weligood ma ilaawi karaan dunida Islaamka iyo derbiyada Cordoba wixii uu soo ikhtiraacay aqoon-yahankan. ma ogtahay waddankii ugu horeeyay mamnuuca xaalufinta dhirta inuu ahaa waddanka Norway? ma ogtahay dheg kasta oo ku taala bisada inay leedahay ku dhawaad 32 muruq? ma ogtahay sababta Ilaahay nooga mamnuucay doofaarka inay tahay in doofaarku cuno qashinka iyo waxyaalo la halmaala? ma ogtahay ku dhawaad 90% dhulka dalka Liibiya inuu yahay saxare ama saxaro xigeen? ma ogtahay in caasimadda dalka Albania ee Tirana inay waxyaalo badan kala mid tahay magaalooyinka kale ee Yurub, balse aysan lahayn maqaayadaha McDonald's? waxaase la mid ah magaalooyinkan Vatican City, Reykjavik oo ku taala Iceland, iyo Podgorica oo ku taala Montenegro. ma ogtahay boqortooyadii Siin ee ku taala dhulka maanta loo yaqaano Pakistan inuu furtay hogaamiyihii ciidan ee Umayyiyiinta Maxamed bin Qaasim al-Thaqafi uuna ku fidiyey diinta Islaamka? ma ogtahay in malaa'igtu ay ka xishoon jireen saxaabiga weynaa ee Uthman bin Affan radiyallahu anhu? ma ogtahay sababta xiniyaha raggu ugu yeelaan jidhka banaankiisa ay tahay in ugaxanta shahwada aysan u dulqaadan karin kuleelka ka jira jidhka ayna u baahan tahay meel ka qabow halkaas? ma ogtahay in neefka geelaahi uusan ilaawin qofka dulmiya? ma ogtahay Xabiibu Najaar wuxuu ahaa nin Yahuudi ah oo noolaa waqtigii Nabi Ciise calayhi salaam? wuxuu deganaa tuulo ku taala dhulka Shaam, waxaana la sheegaa inay ahayd Andakiya. wuxuuna qabay cudurka baraska, taasoo keentay inuu dego meel ka fog dadka tuuladaas. 70 sano ayuuna caabudayay asnaamta. maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa soo martay 2 nin oo saalixiin ah oo ka mid ahaa xerta Sayyiduna Ciise calayhi salaam, loona soo diray inay dacwadda gaarsiiyaan tuuladaas. kolkii ay la kulmeen Xabiibu Najaar wuu ku qancay, wuxuuna ka dalbaday in Ilaahay u baryaan inuu ka caafiyo baraska. allana way u baryeen, wuuna caafimaaday. kadib waxay u sii dhaqaaqeen 2 nin ee wanaagsanaa dhankaasii tuuladii si ay u gaarsiiyaan dacwadda, balse dadkii tuulada way diideen. kadib waxay qabteen shir si ay u dilaan 2daas nin. waxaase ogaaday Xabiibu Najaar, waana meesha ay ka bilaabanayso qisada oo Alle uga sheekeynayo suuratu Yaasiin. waa la leeyahay waxaa ka yimid magaalada dhankeeda fog nin degdegaya, wuxuuna ku yidhi qoomkaygiiyu raaca rasuulada, raaca cid aan idinka warsanayn wax hanti ah. waxaa la sheegaa in hadalkan uu yidhi wuu ula jeeday in markii Alle u baryeen xanuunkii ula daala dhacay muddo dheerna Allena ka dulqaaday inuu damcay inuu siiyo hanti, balse ay ka diideen. waxay ku dhaheen gaaladii ma diintoodaad raacday? wuxuuna ku jawaabay maxaan u caabudaynin eebihii abuuray, xaggiisana liidii celin doono. dood badan kadib way dileen, qaabkay doonaan ha u dilaane. waxaase la sheegaa inay xitaa dileen 2 nin ee wanaagsanaa, balse Alle subxaanahu wa tacaala ayaa jannada geliyey addoonkii wanaagsanaa. wuxuuna yidhi alla qoomkaygii muu ogaado waxa eebbe igu dambi dhaafay, igana yeelay kuwa la karaameeyey. intaas kadib wuxuu Alle soo diray malag oo xitaa la sheego inuu ahaa Sayyiduna Jibriil calayhi salaam. wuu ku qeyliyey hal qeylo oo keliya, dhammaantoodna waa la halaagay. halkaas ayuu ku joogaa muuqaalkeena maanta. nabadgeliyo.